ناصر يسوع كلا عبد الفتاح كرمل يعني هلكن وكوح دليرada وغاديني ee soo saaray dhaantadii Khaatumo أول مرة waxaan shaqada ku soo saartay dhaantada aad baad mahadsan tahay waxa weeyaan Khaatumo horta dhulka Soomaaliyeed ee wada jecelnahay bay kamid tahay xaqiiqada runta markii laga hadlayo waxa weeyo dhul hodana dad hodana ay ku nool yihiin weeyo oo niyadana ka fiyo qalbi ahaan fiyo Soomaalinimada xaqiiqada markii laga hadlayo ku dambayso oo ka boodsanay waxaan anaguna jecelnahay mar walba dadkaas oo kale Soomaalinimada leh inaan amaano sida awgeed dhaantada intaan lagu gudagelin anagu waxaan noo yimid nin la dhaho Cabdiwahaab waxaan saaxiibkay qaaliya inuu xagga isbuucna joogaan malayn ninkaas wuxuu yiri ilaa dhaanta Khaatumo waa inaad sameysaan amar buuxda ma kaga dhigin ma inahayn codsi ma inahayn amar buuxda kaga dhigin muddo kadib anaguna waan soo sameynay markaan soo sameynay Cabdifatax Jarmal oo igrab taagan baa ku luqeynay dhaantada waxay gabadh amaanaysa gabadh bay amaanaysay gabadhana waxay dhaantada ka muuqata in loogu faanayo dhalashada ay ku dhalatay bahda Khaatumo iyo biixiyada talaactay ka beerantay bad nafteeda iyo beerkii waa tahay Allah way ka bari ariyadaas ka mid ah mar in la soo celinayay gabadha waxa lagu amaanayay dhulhoodan inay ku dhalatay dad hoodana oo geesiyaal biixiyada talaax markii la rugta darwiishka yahay talaax qalcada darwiishka yahay baan malay waa meeshii leeynagu xoreeyay ee Soomaalinimada iyo qarannimada Soomaaliyeed dibadda looga aasay Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan uu deganaabay in lagu faano ruux walba Soomaaliya way mudan tahay marka sida awgeed gabadhii ku dhalatay si gooni ah baan u amaanayno anagu aan taaniyad bay noo ahayd waxa ay hadiyad bay ahayd waana gudbinay waan u malayn kulay bulshada noo soo jawaabi doonta in lagu qancay iyo in lagu qancay deegaanada waxaan naga gacansiiyay anigu ma tagin dhulka oo aad noo ma aqaanad meelaha aan ka hel Soomaalida dhan wada taqaan markii laga soo tago Cabdiwahaab khayr Allah siiyo isaga wuxuu soo qoray 30 magac magaalooyinka iyo meelaha ugu la taaban karo 30 iga soo qoray waxaan ku yiri 30 kuba ma wada qaadan karo dhulka ma wada jecel laakiin ma wada sheegi karee inaan ka soo qaadanana ilaa 8 goobood 8 magaalo magacyo yaan dhaantada ku xusan oo kamid ahay haddii Cabdifatax mun iga saxayno wax kale sidaas ay Cabdiwahaab baa lahaa magaalooyinka noo soo qoray SMS buuna igu soo diray Facebook isagoo iyo Cabdixakiin Mursal oo amaareeyaha Ogden 24 labaduba aad bay inta iyagu wada shaqeynayeen waana ugu mahad celinayeen Cabdixakiin waad mahadsantahay dadka kuma arkaan barnaamijka daawayaasha marka hore waxaan salaamayaa bakhdi reer Khaatumo meel kasta joogan reer Khaatumo run ahaantii waa dad aad u wanaagsan oo Soomaalinimada qadariyo oo Soomaalida saxda ah indhihi karo maanta waa Soomaalida kaliya ee Soomaalinimada xasuusan waa reer Khaatumo Soomaalida degta Sool Sanaag iyo Cayn ee reer Khaatumo aad baan u salaamayaa aan ku soo laabtay dhaantada Khaatumo horta yar kadis bay ahayd oo dhaanta imada laga shaqeeyay ma ahayn laga yaabo anaku saan isleenahay dhaanta ha ahata dhaanta baxday oo la sameeyay laakiin sidii loogu tala galay haddana aan si rano waliba dhaantooyin kale inuu soo saaro oo aan qaabka la rabin inay ahaato oo haddana saxaate ee aad bay dhaantadu kulli loogu sameeyay celiyay reer Khaatumo aad u mahadsan yihiin dhaantada waxaa sameeyay Abwaan Cabdinaasir oo ila jooga gacantida lix taagan sidoo kale waxa aad ku taxalluujiyay oo ka dambeeyay in la soo saaro oo isku taxalluujiyay ninka la dhaho Cabdiwahaab ee wariyaha Soomaaliyeed هذا ما يسوي بتشرو سيدو كله nagu hadaan nahay reer ogaadeenaya ama kooxaha fanka ee ogaadeenaya ama kooxana dareemay hadda anagu aan codkeed ku hadlayno waan taageersanahay reer Khaatumo waan taageersanahay wax alla wixii Soomaali oo Soomaalinimada qirsan waan taageersanahay aad baad u mahadsantiin bismillaahir rahmaanir rahiim أنا ورت بهذا ريخات ومآدي آدي أيام سلامة oo hadana waxaan u tacsiyeynaa oo markasta aan u tacsiyeynaa Ilaahay oo naxariiste fanaanadeeni weyneed abwaanadeeni weyneed ee dulmiga diidi jirtay mar walba saada cali warsame Ilaahay oo naxariistan leeyahay ehelkeedii iyo qaraabadeedii ay ka dhimatayna Ilaahay samiriye iimaan ka siiyo Khaatumo aadi aad baan u taageeraa waxaan dhihi karaa waa dadka kaliya oo Soomaalinimadka aan isku fahansanahay oo isfahanay oo isjecelahay meel kasto ay joogan reer Khaatumo waxaan leeyahay Khaatumo ha noolaato ogaadeeniyana ha israacdo wayka wayka ka ka Khaatumo ska ka ka Sool Sanaag Cayn way way baartigaah sigiya baaliyadi ducmaha been lagu korsho
قلقيه لهي بارقبكوه ذباهن كالبيحي لها بارتقيه سقية بالياذي دعماها بيلن لاقو كرشو فوق القيه لهي بارقبكوه ذباهن كالبيحي لها هاكا كا 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 اللهونو بالحذيرو كايا يارتواها بوريق لاقو باراتامي بورتي داها لا إيا لا سعانو باقيهي بحسن اوغو دالين بالحذيرو كايا يارتواها بوريق لاقو باراتامي بورتي داها لا إيا لا سعانو باقيهي بحسن اوغو دالين الليلة خاتومو كه 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 ويكن بابا خاتومي بيحي يالي تالي كيكا بهرانتاي بارنا دائما بيركي باها تهي هالو كيكا باري بارنا دائما بيركي باها تهي هالو كيكا باري بيحي يالي تالي كيكا بهرانتاي بارنا دائما بيركي باها تهي هالو كيكا باري بارنا دائما بيركي باها تهي